وإذا يا منكا فرحت لك علي منكا وليس ولا عافية منكا أنكو عافينا منكا وإذا منكا الله يا منكا وإذا منكا الله يا منكا وإذا يا منكا عرفك يهودكم كمانكا وبحي عليك منكا أنكو عافينا منكا وإذا منكا الله يا منكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة iyo coach mahad iyo video cusub insha Allah soo dhawaada dhamaantiin meel kasta oo caalamka aad kaga sugan tihiin dadka ku cusub channelka insha Allah soo dhawaada si aad ugu xirnaatiin barnaamijyadana dambe insha Allah ha ka iloobinina channelka inaad sameeysiin subscribe inaad sameeysiin asxaabtiina inaad la sii wadaagtiin si share gareedin insha Allah haka inta naga macnaha masuugnina asxaabtiina ha ka masuugnina insha Allah biidnillahi kariim soo dhawaada markale insha Allah Ramadan kariim waxaan ku jirnaa gabagabadii Ramadan marka waxaan soo duubay video bilowgii Ramadaanka ayaa video soo duubay insha Allah haddana waxaan maadaama Ramadaanka dhamaad yahay video cusub ayaan soo duubay insha Allah horta waxaan rabaa inaan marka hore u hambaliyeeyo dadkii videogii hore contactiga ila soo sameeyay Ramadaankii bilaabay markaas meal balaanka aan siiyay iyo balaankii qorshaha dhamaantood aan u hambaliyeenayaa dhamaantood mid iyo qof iyo laba ma ahane aan markaas serious ahayne wax badan dhamaantood iska bedelay waxaan ugu hambaliyeenayaa markaas inay waxyaabo badan ay markaas noloshooda ka bedeleen dad badan oo u baahnaa inay markaa bisha Ramadaan uga faa'iideystaan inay miisaan iska dhimaan culays badan oo markaas saarnaa inay maanta miisaan badan markaa dhimeen qaarkood 10 kiilo sii ordayaan aad baan ugu faraxsanahay bisha Ramadaan halka bilcagsi dadka kale aan maanta dareemayo in meeshaas ayaga 10 kiilo marka ay ka dhacday dadkaas ay markaas ayagana miisaan ku kordhay waana midda hadda live-ka u soo galay oo aan rabo dadkaas inaan markaa xalkooda aan markaa insha Allah iyo markaa qorshahoodii balaankooda aan siiyo way okay marka dhammaan dadka waan u hambaleynayaa videoga hore igula soo xiriiray waxaan leeyahay keep going dhamaantiin intii serious ka ahayd intii go'aan ka lahayd intii hadaf ka lahayd intii ficil ka sameeynayay intii ay dhab ka ahayd inay noloshooda bedelaan wax badan ay macnaha noloshooda ka bedeleen keep going insha Allah biidnillahi kariim nimankana waxaan idin rajeynayaa new challenge cusub bilaabanay inaad ka qayb qaadan doontiin okay dadka sidaasan intaasan leeyahay insha Allah hambaliyadooda dabcan waxaan ogahay ama aan markaas caadiga saarnay bishii Ramadaan dad badan ayaa markaa waxa weeye miisaan badan ku kordhay dad badan ayaa waxa weeye lifestyle ku xumaaday dad badan oo waxa jiray markii hore qorshe ama plan ama diet fiican system watay oo markaa Ramadaankii markuu soo galay cunto xumo ku dhacday ama maaragta cuntooyin qaldan cunay ama bishii Ramadaan cunto badan cunay oo waxa weeye qofkii markaas uu miisaan ku soo bato kale ama uu overweight dareemayo marka absolutely waan ogahay sababtoo ah marxaladahan waan soo maray waan ku soo soomi jiray markaas cuntada Soomaalidu inta badan ay ku afuraan ama ku suxuurtaan waqtigii aad u yar waaniga video kaga soo hadlay saacado iyo 3 saacadood gudahood inuu qofku markaa afuro cunto culus ku afuro cunto culus hadana ku casheeyo cunto culus hadana ku suxuurto ku seexdo way adkaanaysaa markaa qofka waxyaa isbedelka ku imanaya iyo markaas inuu jirkiisu waxyaabo badan markaa qalqala keenayo haddaba dadkaas ayaa waxaan diyaar u ahay marka inaan ayagana waxa la caanada tidabadooda la qabtaa dadka ayaan waxaan leeyahay soo dhawaada insha Allah biidnillahi kariim hadii bishii Ramadaan aad waxa weeye sambuuska naga jeclaysateen iminka Ramadaan waa dhamaaday only 3 days ka dhiman insha Allah welcome marka soo dhawaada dhamaantiin go'aan cusub aan kaga baahan yahay ficil cusub aan kaga baahan yahay inaad macnaha noloshiina bedeshaan ayaa loo baahan yahay coachingkii iyo plaankii iyo qorshihii iyo systemkii iyo nidaamkii iyo nutritionkii iyo la talintii iyo caawintii iyo wixii oo dhan annaga idin hayna okay
haddaba marka maxaan doonaynaa marka bulshadeennu waxaan macnaha aan isku raacsanahay inay u baahan yihiin nafaqo iyo balance nutrition. waa wax macnaha aan laa shaki ah oo aanan shaki gelinaynin oo aanan maaragta aanan waxba iska weydiinaynin. nafaqo dheeli tiran ama nutrition ama lifestyle dadkeenu way u baahan yihiin. dadkeenu way intaasay ka dhinteen ay ka aradan yihiin. dhammaan waxa weeye ma haystaan nutrition iyo nafaqo ma haystaan. marka waa midda u taaganahay oo fiidiyodan ugu soo celcelinayno oo ilaa laga weynayo gabar Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed ama aabba Soomaaliyeed oo de nutrition macnaha boqolkiiba boqol maaragta waxa weeye noloshiisu si toos isku bedeshay. inta laga weynaya anagu waan wadaynaa oo soo duubaynaa fiidiyoda waan ku soo celinaynaa dadkana noloshooda waan madalaynaa. waxaan idin rajaynayaa marka dhammaantiin inaad noloshiina wax badan ka bedeli doontiin insha Allah. maxaan u baahanahay marka maxaan isku raacnay bulshadeennu inay u baahan tahay balance nutrition, inay u baahan tahay nafaqo, inay u baahan tahay lifestyle, inay dhan walba xataa marka waxa weeye u baahan tahay inay noloshooda wax ka bedelaan. haddaba after Ramadan waxaan doonayaa insha Allah ama aan rabaa inaan dad badan noloshooda bedelo. 90 days challenge ayaan sameynaynaa. 90 maalmood oo isbedela ayaan markaas waxa weeye sameynaynaa. 90 ka maalmood waa 30 insha Allah. 30 ka maalin ayaan waxaan isku dayeynaa insha Allah haddaad nala shaqayso oo serious tahay balaanka aan ku siino aad raacdo waxaan isku dayeynaa insha Allah in aad maanta tusaale ahaan hadafkaaga aad ku xaqiijiso. haddaad doonaysay inaad miisaan kordhiso 3 bilood gudahood inaad result cad aad maanta dadka la soo wadaagi doonto. haddaad rabto inaad miisaan dhinto sidaas oo kale okay waa guarantee wixii aniga oo guarantee 3 bilood haddaad balaankan ku sii raacdo sida aan kuu siiyo aad u samayso aad iska dhaafto maaragta la yiri iyo sidana la lahaa iyo waxyaabaha laabla kaca dadka kala sheekooyinkooda iyo waxyaabaha aad meel iska dhigto only aniga adiga aan noqono balaanka iyo qorshaha iyo nidaamkana aad raacdo waxaan guarantee ku siinayaa 3 bilood inaad isbedel muuqdo helayso aadna noo mahad celi doonto. waa wax guarantee ah oo aan markaas aanan maaragta aanan ka labalabeynaynin ama aan wax mugdiya nooga jirin okay. haddaba dad cusub aan u doonaynaa insha Allah oo fiidiyogan ku doonayaa 20 qof ilaa 15 qof oo iskugu jirta inay markaas ay new life bilaabaan noloshooda wax ka bedelaan. miisaanka hadday rabaan miisaanku ku badan yahay ama bishii Ramadan ha kugu soo kordho ama marka hore miisaanku ha kugu badnaado ama low energy ahow ama balance macnaha nutrition aadan haysanin ama nafaqo dheelitiran aadan haysan ama jirkaaga aad dareemayso inuu nafaqo u baahan yahay inuu nutrition u baahan yahay inaad coach u baahan tahay haddaad dareemayso insha Allah anuu 3 sano hadda ku sii dhowahay cuntadan aan ku siinayo oo aan balaankeeda ku siinayana isticmaalaa. waxaan na bedelay wax kasta oo aan caafimaad ahayn. cuntooyinkaygii boqolkiiba 99 waan bedelay. cuntadan markii hore cuni jiray noloshaydu dhan automatic wixii dhan waan bedelay okay. haddaad ku noqoto YouTube-kayga oo fiidiyodeeda qaabkan u dhaway miisaankayga part 1 part 2 part 3 aad soo aragto waad ku arkaysaa macnaha anigu dhammaan noloshayda waxbaan ka bedelay dhammaan totally way isbedeshay. dad badan oo aad u badan ayagana sidaas oo kale oo ilaa 3,000 qof gaaray. haddaba marka maxaa lagaaga baahan yahay marka new people ka maxaan uga baahanahay dadka cusub maxaan uga baahanahay haddadan 7 qodob lahayn marka waxa weeye waxba teleefankaygana ha soo garaacin aan hana isi soo lugoynin. 7 qodob marka muhiim ah horta inaad tahay qof hadaf leh ujeed qof leh qof de wax raba inuu bedelo noloshiisa raba inuu de markaas wax bedelo oo ay ka go'an tahay oo macnaha raba inuu waxa bedelo. maxaa rabta maanta inaad samayso maanta inaad miisaan iska dhinto imisa kiilo 20 kiilo macnaha waa inaad leedahay hadaf ujeed waa inaad leedahay okay cool go'aanna waa inaad leedahay de qof go'aan qaada kara waa inaad tahay okay. go'aan macnaha qof aan go'aan lahayn waxba ma tiri karo waxba bara kartid maaragta lifestyle ma samay kartid noloshaada waxba kama bedeli kartid. marka waa inaad go'aan leedahay lambarto macnaha go'aanka lambarto iyo ah iyo inay kaa go'an tahay waxaanu de kaa go'an yihiin okay. ficil inaad leedahay qof ficil sameynaya inaad wixii waa inaad markaan balaankii ku siiyo qorshihii ku siiyo inaad ficilkii la timaado maahan de inaad iska fariisato aniga soo fiiriso laakiin waa inaad de ficilkii sameynaysaa. waan hayaa anigu wixii isbedelkaad ku samayn lahayd productigii iyo nutritionkii iyo balaankii iyo qorshihii iyo systemkii iyo wixii dhan waan ku hayaa laakiin ficil ayaan kaaga baahanaa insha Allah.
okay balaankaaga inaad raacdo ayadana waa very important inaad balaankaaga raacdo oo balaanka aan ku sii doonaad raacdo xaggan aad uga dhicin xaggan uga dhicin ayeeyaa tiri habaryaraa tiri aabaheeyaa yiri walaalaa tiri sidaana la yiri eedaday waxay tiri youtube-ka waxaa laga lahaa gabar baa waxay tiri sidaasaa waxa ma doonayaan no waxa wax ka jira ma jiraan xagga iska ilow iskaga tag taas waa in aad raacdo balaanka aan ku sii doono insha allah baldadowna maqla idinkuna insha allah waxaa kale oon meesha ka marnayn wax la yidhaha qooto inaadan samayn wax qooto waxa laga wadaa balaan baan ku siiyey waxaan ku iri sidaa waxaas ku quraaco waxaa ku cashee waxaa ku qadaya sidaa samee biyaha cabsida marka adoo samaynayaad qootona samaysay halkaanaad kasoo darsatay halkaanaad dee markaad rabta inaad noloshaada wax ka bedasho waa inaad bedeshaa caadooyin horood laheed waxyaabo badan waa inaad bedeshaa cuntadaadii waa inaad bedeshaa fikirkaagii waa inaad bedeshaa waxyaabo badan marka wixii adigoon bedelin waxba kale ma samey kartid okay marka sidaa darteed noo qooto lama ogolo qooto haddaba intaa haddaad tahay qofkaa samay kara intaa dabcan qofaan samay karin ma jiro anna waan ku garab taaganahay waan kugu caawinayaa waan kugu dhiirigelinayaa insha allah biidnillahi alkariim 3 bilood kadibna waxaan kuu rajaynayaa isbedel weyn oo dhan walba haddaad maskal rabto inaad samaysato haddaad rabto miisaanka inaad kordhido haddaad rabto inaad dhinto 20 kilo 3 bilood ama 15 kilo wixii adigu markaa aad doonaysa insha allah waxaa balaas kuu ah caafimaadka inay waxba iska bedeli doonaan energy inaad heli doonto farxad inaad heli doonto caafimaad inaad heli doonto lifestyle inaad heli doonto sababtoo ah waxaasoo dhan waxay la socdaan nutritionka iyo nafaqada okay meehi dhakhtar dawana kuma siinayo waxaan only aan kaa caawinaya ama aan kaala talinaya waxay tahay only waxaad cunayso cuntada aad cunayso ayaan qorshe iyo plan iyo nidaam iyo system aan kula dejinaya waadna ku guuleysan doontaa insha allah waadna ku mahadid waadna macnaha nooga mahad celi doontaa insha allah waadna jeclaa doontaa noloshaada iyo lifekaaga insha allah biidnillahi alkariim dadka kale kugu hareeraysanna aad bay uga heli doonaan isbedelkaad hesho laakiin go-aan insha allah go-aankaa lagu kala tegay waxaa jira dad badan oo muddadii aan programkan wadayba 2 sano ka badan aniga igu xirnaa oo hadda ku soo biiray teamkayga waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa 2 sano macnaha waxaana la yiri intay ka dhacday sidan ay dadkan u dhintaan maxay dadkan cunayaan waxyaabahan waa sidan macnaha intii waxa ay ku jireen ay overweight sii noqdeen noloshoodii sii xumaatay annagana waxa weeye dee maalin kasta oo qofkiina arkay inay nolosheena sii bedelayso maalin kasta waxa weeye new people ay markaa soo joongareynayaan teamkii gruubyaan leenahay teamaan leenahay badan oo waxa weeye aad dad badan ku arki doonto dad noloshooda isbedeshay dad de serious nolosha ka ah dad waxa weeye xaalado kala duwan oo ku noolaa jiray laakiin maanta noloshooda dhammaantood isbedeshay hooyooyin la aabiyoon dhalinyarada kulli waad arki doontaa marka soo joongaree insha allah teamkeena taleefanka halkan aan markaa kugu soo qorayo ayaad iga soo wacaysaa dhinaca macnaha dhanka whatsappka insha allah iga soo wac marka 2 telefoon aan idin sii doonaa insha allah midkan aan ku qoray coach Sahra Faarax xaskayga ayada wixii dumara way la soo xiriiri karaan way caawinaysaa wayna coach garaynaysaa kan kalena aniga iskale nimankaad arkaysiin si toos ah siiba rag oo kale ama xataa dumarka laftirkooda way ila soo xiriiri karaan si aan markaa u siiyo balaankoodii iyo qorshahoodii iyo systemkoodii iyo nidaamkay markaa raaci lahaayeen muhiimaddu marka waa intaas insha allah biidnillahi alkariim mar rabo inaan video ku dheereeyo aad iyo aad aan idiin soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan insha allah caawana dee waa insha allah waxaan rajaynaynaa inay laylatul qadar tahay 27 ramadaan insha allah ilaahay naga dhigo kuwa markaa cibaadada iyo soonka iyo salaada iyo sadaqada ay markaas ilaahay ka aqbalo ilaahayna noo aqbalo laylatul qadarka insha allah biidnillahi alkariim haddii habeenadii lasoo dhaafay oo ahaa iyo haddii caawa noqoto iyo haddii ay 29 ka noqoto intaba insha allah waxaan rajaynayaa in aan marka dhammaanteen aan adduuniya aqraba liibaani doono biidnillahi alkariim haddaba balanteenu insha allah waxaad soo wici doontaa insha allah teleefonkayga haddii aad joogto meelaha ay ka jirto macnaha coachingkeena uu ka jiro insha allah biidnillahi alkariim marka aad qoraal ii soo qorayso insha allah ii soo sheeg
meesha aad joogto iyo hadafkaaga wuxuu yahay haddaadan iska kay soo wacdo macno ma samaynayso laakiin waxaad tiraahdaa hebel oo jooga Canada waxaan doonayaa programka noocaasa waxaan u baahanahay inaad caawiso mi soo wici kartaa ma ku soo wici karaa dan markaa insha Allah waan ku soo wici doonaa insha Allah WhatsApp kana iga soo waca aad baan idin salaamaya insha Allah dhamaantiin intaan ku kulmayno فيديوغا نوحيغا إن شاء الله بإذن الله الكريم وكوش مهد وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا يا منكا فرحت لك عليه منكا ليس ولا عافية منكا أنكو عافية منكا وإذا منكا